iyadoo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ee dalka Soomaaliya la filayay inuu ka furmo shir u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayna shirkaasi ka maqan yihiin maamulada Puntland iyo Jubbaland xaaladda siyaasadeed ee dalkuna ay tahay mid kacsan musharaxiinta mucaaradkana ay ku baaqayeen maalmihii u dambeeyay bannaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo ayaa shacabka degmada Buurtile ee gobolka Nugaal oo la hadlay telefishinka caalamiga ah ee Universal waxay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan xasmari waag ka taagan gudaha Soomaaliya ee dhinaca doorashooyinka waa shirka ugu balansanaa 18 waxa ka dambeeyay qalalaase siyaasadeed iyo banaanbax iyo shacabka iyo xabad la dhacay sida daraadeed mowqifka ay ka qaateen labada mas'uul ee Puntland iyo Jubbaland waxaan qabaa waa mowqif sax ah sababtoo ah dawladdii Soomaaliya oo la rabayna shacabka ilaaliso ayaa waxay samaysay in shacabkii oo si salmiya u mudaharaadaya ayay xabadaysay waxa la yiri nimba laba nin oo tuuga yaa meel beera galay markaas waxa la yiri ninkii boqorka ahaa oo meesha lahaa wuxuu yiri waa diihiisii mid walba xabad mira inta soo goosto dabada laga gelin midna ha u soo baxay kii hore wuxuu soo goostay niima ugunji goortii dabada laga gelinayay buu qoslay war maxaa ku qoslaysaa baliya saaxiibkayga iga qaraha uu soo wato weeyaantiisa iyo dabada laga gelinayo yaa ku qoslayaa buu waxa qoslay nimanka saasa nimanka u naagayo u jaajuusaya ama ha joogeen gobolada oo maamul goboleedyada ha joogeen ama ha joogeen Soomaaliya oo nimanka hadda fidmooyinka dhigaya ha ahaadeen nimankaas baa waxay nimankii qaraha dabada laga gelin lahaa waxaan rabaa inaan horta hoosta ka xariiqo sheego inay jirto dawladda aqoonsan yahay oo adduunku aqoonsan yahay oo dalka wax badan ka qabatay oo madaxweyne leh oo ra'iisul wasaare leh oo golo baarlamaan leh oo baarlamaan leh oo dalka ka shaqeynayso wax badan qabatay markaan ka hadlo tan mucaaradka iyo qoliyahan musharaxiinta sheeganayana horta waa dhaliilayaayo ka aragtidayda markaan ka hadlo waa niman waxay leeyihiin niman duloobay bay leeyihiin oo dalka iyo dadka gatay oo shisheeye u adeegaya oo daba dhilifa oo runtii aan dalka mustaqbalka lahayn marka waxa oran lahaa dadka doonaya Soomaaliya inay god ku dhacdo ama ay gacanta isula tagto oo wixii 91 iyo wax ka sii foolxun ay meesha ka yimaadaan anu waxaan leeyahay yaan loo aamusin ee hal laga hortago gacanta laga qabto oo isimadu ha kaceen wax garadku ha kaco shacabku ha kaco shirkii baaqday oo maamul goboleedyadu ay cilaansheen inagu maalintii ugu horeysay madaxweynuhu ku baaqay waa dhageysanaynay madaxweynaha waan ognahay shacab ahaan iyo community ahaan iyo ummad ahaan waqtigiisa inuu dhamaaday laakiin hadeed waxa weeye wuxuu ku dhawaaqay sidii looga gudbin lahaa dawlad loo raadin lahaa taasna waxa weeye waxaan la qabay Puntland madaxweynaheedu waa soo dhaweeyay Muqdisho iyo cilaashay kugu san bay ahayd taas waanu sugaynaa ilaa iyo hadda waxaan sugaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyadu inay sida ugu baaqeen Muqdisho inay tagaan ayaa loo baahan doorashada waxa hortaagan waa Farmaajo maamul goboleed ma hortaagna siyaasina ma hortaagna waxa weeye danisiisu ku ilaashanaya Farmaajo hadda xiisada taagan waxay xilligan aan joogno ka abuurantay xilligii doorashadii waxa qasay oo ilaa hadda muddo 7 bilood 8 bilood hadba meel soo joojinayay oo wixii la gaara ka baxayay waa nimanka la yiraahdo maamul goboleedyada qaar ka mid ah nimankaasu dan Soomaaliya uma joogaan dalka dantooda u joogaan iyo dalal shisheeye hadeer waxaad ka garanaysaa heshiiskii hadeer bay dhab lagu gaaray bal wixii hore ka soo tago oo saxiix loo rabay oo ergooyinkoodii madaxtooyo joogeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ba warbay ka soo saareen waa diideen aadan xasan aadan ar Universal TV Buurtile